Manchester United ayaa suuqa ka heshay weeraryahanka ay raadinaysay. Macallin Erik ten Hag ayaa farta ku fiiqay una arka inuu bedel u noqon karo Cristiano Ronaldo. Weghorst laacibka kooxda Burnley weerar kaga dheela haddana amaahda kula jooga kooxda Besiktas ee wadanka Turkiga ka dhisan. haddaba waa kuma Weghorst muxuu ku soo kordhi karaa Manchester United? Waa maxay sababta uu Macallin ten Hag ugu arko inuu yahay laacibka ku habboon ee hadda uu ka heli karo suuqa kala iibsiga? maxayse ka filan karaan jamaahiirta Manchester United? muuqaalkan ayaan sheekooyinkaas oo dhan oo faahfaahsan in kugu soo gudbin doona intaanaan se falanqaynteenu guda gelin. fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka ku soo biir oo subscribe kugu cimaamad, muuqaalka like saar, naguna soo biir si aad u hesho wararkii iyo falanqaymihii ugu dambeeyay ee kooxdaada. mahadsanid. waayahay, soo dhawaada saaxiibayaal, ku soo dhawaada muuqaal kale. waa anigoo ah Cabdikaafi Cabdullaahi, channelka daawanaysidna waa Kaafi Sports. Manchester United ayaa wada hadal meel fiican maraya kula jirta kooxda Burnley si ay ula soo wareegto weeraryahankeeda Weghorst, kaas oo hadda u ciyaaraya kooxda Besiktas kuna jooga heshiis amaaha wadanka Turkiga. United ayaa laacibkan kula soo wareegaysa heshiis 6 bilood ah oo ah inta xil ciyaareedka ka dhiman oo amaah ah. Macallin Erik ten Hag ayaa ninkan u arkay inuu yahay laacibka ugu habboon ee uu suuqa kala iibsiga ka heli karo. haddaba waa kuma Weghorst? waa maxay sababta uu Macallin Erik ten Hag laacib kooxda Burnley ay inta soo gadatay waxba faa'iido ka weysay amaah isaga dirtay oo uu arko inuu xal u noqon karo Manchester United? waxaa laga yaabaa inaad Weghorst magaciisa xasuusatid ugu yaraan haddii aad daawatay koobka adduunka ee hadda soo gabagaboobay. waxauu 2 gool ka dhaliyay kooxda wadanka Argentina ee koobka ku guuleysatay kulan quarterfinalka koobka adduunka ay la ciyaareen xulka Holland, asagoo markaas bedel ku soo galay dhamaadkii ciyaarta. ninkan waa 30 jir, wuxuu u dhashay wadanka Holland. wuxuu waayihiisa xilli ciyaareed inta badan kusoo qaatay kooxda Wolfsburg ee ka dhisan wadanka Jarmalka. sanadkii hore bishan xilligan oo kale ayuu kusoo biiray kooxda Burnley oo 12 milyan ay kala soo baxeen, laakiin Premier League 6 bilood oo ku qaatay si bandhig aad u fiican soo bandhigin. kaliya 2 gool ayuu dhaliyay 20 kulan oo kooxda Burnley u ciyaaray. kadibna kooxda Burnley oo aaday horyaalka hoose ee wadanka Ingiriiska darteed, laacibkan waxay amaah u dirtay kooxda Besiktas. bandhigiisa xilli ciyaareedkan ee wadanka Turkiga haddaan fiirino 8 gool ayuu kooxda Besiktas u dhaliyay, 16 kulan oo dheelay, sidaas la mid ah 4 gool ayuu caawin ayuu sameeyay. bandhigiisa markii la fiirsho waxay ka dhigan tahay inuu 2 kulan walba uu 1 gool u dhaliyay marka la isku celiyo goolasha uu dhaliyay iyo kulamada uu ciyaaray, taasoo runtii ah mid aad u fiican. haddii aan ku laabano bandhigiisa xilligii xilliyadii hore ka hor intuu Premier League imaan, kooxda Wolfsburg ayuu xilligiisa inta ugu badan kusoo qaatay oo dhowr season u soo ciyaaray. 70 gool ayuu u dhaliyay 144 kulan oo kooxda u dheelay. intaas ka horna wuxuu u soo dheelay kooxda Alkmaar ee wadanka Holland ka dhisan, isagoo 45 gool u dhaliyay 86 kulan u soo dheelay. marka ninkan nambaradiisa haddaad fiirisid runtii ma xuma oo isku celcelis ahaan waxay u muuqdaan nambaradiisa inuu 2 kulanba gool dhaliyay, taasoo runtii aad ugu ogdhow wax hadda oo Besiktas sanadkan kusoo bandhigay. haddii si dhaba loo hadlo, Weghorst ma ahan ciyaaryahanka ama weeraryahanka ugu fiican ee adduunka, mana ahan weeraryahanka ugu fiican ee United ay la soo wareegi karto, balse sidaan ognahay kooxda Manchester United waxay ku jirtaa xilli dhaqaale oo aad u xun. sidaas la mid ah nimanka kooxda iskale kooxda oo iska gadayaan, oo xilli ciyaareedkan ayaa u muuqata inuu yahay xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee kooxda si maamuli doonaan iyagoo kooxda suuqa dhigay oo iib geeyay. marka United uma badnayn inay sanadkan lacag ay suuqa gelin doonto sababahaas darteed. sidaas la mid ah sanadkii hore ay lacag 200 milyan ka badan suuqa gelisay. marka sanadkan lama filayn inay United suuqa kala iibsiga ciyaaryahan kala soo wareegto, laakiin baahidan xagga weerarka ah waxay timid kadib markii uu Cristiano Ronaldo kooxda ka tagay. sidaas darteedna Macallin Erik ten Hag optiono badan lama siin oo lama dhihin weeraryahan ka rabtaa, ee wuxuu ku qasban yahay in uu ciyaaryahan loan ah oo amaah kooxda ku yimaada, isla markaasna aan wax lacag oo saas u badan isu ku baxayn oo la soo wareego ilaa iyo xagaaga laga gaarayo, markaas oo uu suuqa si fiican u gali doono oo weeraryahan fiican la soo wareegi doono. haddaba Weghorst ma yahay ciyaaryahan ku habboon Manchester United iyo Macallin Erik ten Hag? intaan aan su'aashaas ka jawaabin, bal horta aan fiirino Weghorst waa ciyaaryahan noocee ah. ninkan waa nin dheer, waa nin dhir ahaan jeeda 6 cagood iyo 6 inches, waa nin madax ku fiican, waana nin lagu tilmaamo inuu yahay ciyaaryahan typical number 9 waxa loo yaqaano ama striker old school ah, oo waa nin xoog leh, madaxa goolal ku dhaliya, markuu ku jiro xerada ganaaxana dhibaato aad u weyn u keeni kara kooxaha ka soo horjeeda. sidaas la mid ah ninkan waa nin attitude-kiisa ama personality-giisa aad loo amaanay, oo markii kooxda aysan kubadda haysan pressurekiisa oo aad u fiican yahay. sanadkii hore Premier League intii yareed oo joogay wuxuu noqday laacibkii ugu pressinka badnaay ama orodka ugu badan iyo dadaalka ugu badan bixiyay markii kooxda aysan kubadda haysan, taasoo lagu qiimeynayo guud ahaan ciyaarnada Premier League ka ciyaara dhanka weerarka iyo dhanka difaaca iyo dhan walba ha ahaadaan ninka ugu dadaalka badan ugu pressinka badan ayuu ahaa. marka ninkan attitude-kiisa aad ayaa loo amaanay,
waa nin dheer oo xoog leh, waa nin madaxa ku fiican sida goolashiisa aad ka arkaysa markaad daawatay goosgooskiisa, waana nin sidaas la mid ah midigta iyo bidixda gool ku dhali kara. haddaba haddaan usoo laabano jawaabta ah ma ku habboon yahay Manchester United, sababta waxaa la dhihi karaa haddii dhanka positive-ka laga fiirsho haa, maxaa yeelay ninkan wuxuu United keeni karaa wax aysan hore u haysan. markaad suuqa aadaysid oo wax soo gadanaysid waxay rabaan ha ahaadaane, ama sida hadda keeska uu yahay markaad ciyaaryahan soo gadanaysid waxa ugu koowaad oo laga fiirsho waa in ciyaaryahankan oo waxa aad haysatid wax ka duwan oo kooxda kusoo kordhi karo. sidaan ognahay United hadda ma haysato ciyaaryahan number 9 la yaqaano. Anthony Martial oo garab ah ayay ka haysataa, oo garab markii soo hore ahay ayay weeryahan ka haysataa, iyo Marcus Rashford oo isagana garab ah oo gooliso dhan garbaha ka dhali. marka ninkan United wuxuu u keeni karaa waxa ay haystaan wax ka duwan. waa ciyaaryahan dheer, waa nin madaxa ku fiican, waa nin haddii ay maaragtay marka kooxda lagu dhigan yahay ama ay gool raadinayso 80 daqiiqo inta la soo geliyo ciyaarta wax ka bedeli kara, oo ciyaarnada garoonka ku jira wax ka duwan garoonka soo geli kara, oo kooxda keeni kara engine aysan haysan. dhankaas marka laga fiirsho haa, waxyaalaha kale oo ninkan macallin Erik ten Hag ku doorto waxaa leeyahay waxaa kamid ah sidaan hore usoo sheegnay attitude-kiisa. waa nin dadaal badan, waa nin orod badan, waa nin kooxda u dheela, waa nin tempo maaragtay tusi kara ciyaarnada kale, waa nin markaysa kooxda kubadda haysan dadaal badan bixi kara. sidaas la mid ah ninkan waa nin link up-ka iyo maaragtay inuu kooxda la dheelo ku fiican, oo inta kubadda soo doonta kubadda joojiya, laacibiinta garbaha ka ciyaara fursado fiican oo abuuri kara sida Martial ama Rashford iyo Anthony iyo Sancho ciyaarada la midka ah. Weghorst marka la fiirsho bandhigiisa guud ma ahan mid aad u liita marka laga reebo xilli ciyaareedkii haafka ahaa oo Premier League ku qaatay, kaasoo asagana kooxdii ugu dheelay ee Burnley oo sidaan ognahaba ah koox maaragtay aan waqti badan gelin inay goolo dhaliso wax abuurto, inta badan ku mashquulsan inay wax difaacato, isla markaasna horyaalka sanadkaas relegation ka aaday oo championship-ka u dhacday, taasoo sabab u noqon karta bandhigiisa aad ku liitay ee xilli ciyaareedkaas Premier League. haddaba haddii aad tahay taageero Manchester United maxaad ka rajaynaysaa Weghorst? ma kula tahay inuu yahay ciyaaryahanka ku habboon kooxda? macallin Erik ten Hag ma aaminsan tahay in uu ku saxan yahay go'aanka oo Weghorst kaga doortay weeraryahanno badan oo kooxda lala xiriirinayay oo kamid yihiin Tony Abrahams, Marcus Thuram, iyo xitaa waxaa la leeyahay wuxuu sabab u noqon karaa in oo Joe Felix oo kooxda kusoo biirin, oo kooxda dadaalka ay ku bixinaysay Joe Felix oo halkaas kusoo gabagabi karo. maxaa yeelay sidaan ognahay baan hore usoo sheegnay kooxda optionno badan ma haysato, oo ma badna inay Joe Felix iyo maaragtay ninkan ay isku keeni karto. marka ma kula tahay in uu yahay ciyaaryahan ku habboon? maxaad ka rajaynaysaa in uu Premier League soo bandhigi doono? nagula wadaag qaybta commentiga. mar walba fariimihiina iyo fikirkiinu waa noo muhiim. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. mahadsanid.